waxaa maanta sharaf ii ahayd inaan ka soo qayb galo xafladda qalin jebinta dufcadda labaad ee macadka xirfadaha ee Jigjiga oo aasaaskeeda iyo fikirkeedaba uu lahaa walaalkay Cabdiraxmaan. Si guud waa fikrad wax ku soo kordhisay deegaankeena dhalinyarteennana u abuurtay meeshii ay ka heli lahaayeen adeegga ay u baahnaayeen oo ahaa aqoontii xirfadda. Adduunyadu maanta way ka guurtay inaad degree qaadato, masterate qaadato, deedna waxaagu uu ku soo koobmo uun shahaado, laakiin aqoon itus oo itaabsii leh, suuqii leh, marketkii leh, barashadeedu waxaan filayaa inay ku koobnayd macaddada kale ee dawliga. Marka waan ugu hambalyaynaynaa in uu bilaabay fikraddan. Ardayda maanta halkan ka qalin jebisayna waxyaabahan ka arkayna waxaa ka mid ah qaar durtaba iyagoon qalin jebinin horeyba ka bilaabay inay ku shaqeeyaan oo dadkii ay ugu adeegaan magaaladii iyo lafahoodiina wax ugu qabsadaan. Marka hambalyo baan leeyahay. Dhalinyarada kale waxaan leeyahay inaynu fikirka shaqaystanimada jebino. Waxaynu u baahannahay inaynu baranno xirfadihii ay magaaladu u baahnayd. Jigjiga dadna Maraykan bay u tahay, dadkeediina Afrikay u tahay. Marka isha ay dadka kale ku arkayaan ee Maraykanka ugu tahay inay innagana noogu noqoto ayaan rajaynayaa. Fariintaana waxaan u dirayaa dhalinyarada kale. Aad baad u mahadsantihiin.